بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال ولي وحان كجرنا برنامج كيني مرشد المعلم حلقة دي هراء وحان أغسو شاكيني الفروق الفردية أما كلا دوانا شهدتك تاسو رنتي معلمة القرآن كان قونيكو أهين قف والبو آباء أما مربئة أما مامولاء أما قف والبو بالآدن دادك سوء ولا رقبايو مهم واه waxaan xalqadan aan dhamaystir u tahay xalqadii hore ee kala duwanaanshaha ku saabsanayd waxaan oga hadlaynaa qaybtan hore dadka mustawayaadka ay kala yihiin marka laga eego xagga waxgaradka dadku saan soo sheegnay shantaas farood ilaahay ma simin qofba ilaahay mawhibo gooni uu siiyey qofba waxba ilaahay waa risqi ilaahay suu qaybiyo oo kale ayaa ilaahay uu qaybiyey marka culimada iyo khubarada cilmi nafsi tarbawiga waxay ku tilmaamaan ilaa marxalada kala duwan bay sheegaan ama heerar kala duwan dadku ay yihiin mustawayaad kala duwan xagga waxgaradka iyo xifdiga iyo fahanka marka laga hadlayo qaybta ugu horeysa waxa la yiraahdaa al-abaaqira abaaqira waa dadka aadka u maskaxda badan ee adduunka hal abuurka ku soo kordhiyo hal abuurada aad aragteen ama caafimaadka ha noqoto ama daawooyinka ha noqoto ama cilmiga sayniska ha noqoto ama nalalka iyo waxaan horumarka ha noqoto qof buu ilaahay ku sabaa dadka nooca waxyaabaha nooca sameeyay inta badan mawhuub baa la yiraahdaa ama waxa la yiraahdaa abaaqira dadka abaaqirada tiraan aad bay adduunka u yaryihiin maskax buu ilaahay uu siyaa dheeri ah waxyaabo ay dadka kale ayna ka fikirin ay ka fikirayaan isku daygooda yaa badan ilaahay markuu ku sababaa wax badan oo horumar ah ay sameynayaan qaybta ku xigta waxa la yiraahdaa al-adkiya waa dadka adkiyada ee maskaxda badan ee smartiga waa qof smart oo maskax badan لكن عباقرadaas wax yar ay ka hooseeyaan aladkiya haddaan jaamacadaha iskuulada iyo aan ka qiyaasno iyo dugsiyada iyo waa ardada active-ka ah ee inta badan mumtaaska ka keento aladkiya dadka ah waxaa ka hooseeya dad la yiraahdo mutawassit adh-dhakaa waa dadka si u badan yihiin waa qof dhexdhexaad ah carruurta iskuulada waad aragtay ama madaarista ama kada arday yar ayaa waxay keenayaan sagaashamaad inta kalena way ku xigaan kuwan marka la yiraahdo mutawassit adh-dhakaaga oo bilaadanka in badan oo kamid ah ay galayaan waxaad arkaysaa in ay maxaa la yiraahdaa 80 70 iyo 85 iyo wax ka sareeya ayay imtixaanaadka inay keenaan iyo maaragtay xagga waxbarashada mustawooda waa inaha dhexe marka mutawassit adh-dhakaa ayaa la yiraahdaa dad waxaa jira la yiraahdaa aqal min mutawassit adh-dhakaa waa 65 iyo 75 iyo 71 iyo meelaha ayay keenaan waa jayidka dadka ah maxaa la yiraahdaa ka hooseeyo dadka adkiyada ahna ka yara hooseeyo qaybta afraad waxa la yiraahdaa bati'u tacallum ama afka carabi waxa lagu yiraahdaa bati'u tacallum waxa weeye waa dadka waxbarashadooda uu ku jiro culayska ardaygan waxa weeye markuu dadaalo ayaa 60 inuu keeno ay u badan tahay maadooyinka 55 60 62 meelaha ayuu keenayaa markuu aad iyo aad u dadaalo marka xogaa budi waa ku jiro wax uu baranayaa laakiin xogaa wuxuu u baahan yahay gacan qalbad badan wasaa'ilka oo macallimiin baa ku takhasusto tarbiyada bati'u tacallum ama su'uubaatu tacallumka waxa la yiraahdo dadka tacallumkooda uu maartay yara daciifka yahay ama uu yara culayska uu ku jiro qaabka loo daaweeyo qaabka loola tacaamulo iyo wax la midka dad baa ku takhasuso xagga tarbiyada qolada ka sii hooseysa waxa la yiraahdaa al-mutakhallifuuna aqliyan waa dadka takhalluf aqliga uu ku dhaco takhalluf aqliga marka waa maxay takhalluf aqliga waa jirooyin baa keeni karo waxa keeni karo cunuga intuu uurka hooyadii uu ku jiray inay jirooyin ku dhacaan oo sidaa uu takhalluf aqliga ugu dhaco waxa dhici kara markuu dhalanayay jug gaartay oo kale inay sababto inuu maaragtay takhalluf aqli uu ku dhaco waxa dhici karta asoo weynba inay jirooyin ku dhacaan oo takhalluf aqli uu ku dhaco takhalluf aqliga marka maxaa waxyaaba lagu garto waxa kamid ah cunuga garaadkiisa iyo maskaxdiisa iyo koritaankiisa iyo wixii la rabay inuu garto cunuga isaga la mid ah ma garanayo mustawaha xitaa maaragtay tacaamulka iyo koritaanka maskaxeed ayuu kaga hooseeyaa haddii waxbarashada marka la tagana waa la mid marka inta badan ani intaan arkayay waxbarashada dadka caalamiyan waxa la yiraahdaa dadka mutakhallif aqliyanka dabcan way yaryihiin aad bay u yaryihiin intii aan tacliinta ku jiray waxaan ka xasuustaa hal arday aan dhihi karo si sax ah takhalluf aqli ah hayay ardaygaas muddo dheer iyo sanado dheer baad waxaad arkay asagoo juz cama iyo juz tabaarak dhaafila
oo dhaqaaqila ayaad arkaysaa sida kale wuxuu ahaa nin fiican wuxuu ahaa cunug xagga calaaqaadka ijtimaaciga ama qofka sida loola dhaqmo soo ku salaamayo akhlaaqdiisa masaajidka ku arkaysaa maaragtay sida waxa ka muuqato qof macnaha maskaxiisa waxa si ka yihiin ma aha laakiin xagga tacliinta culays aad iyo aad u badan uu ka saaray ardada noocaas oo kaleeta ah daryeel gooni u baahan yihiin waxaa loo diraa khaatiirta ku takhasustay cilmiga tibbi nafsiga waxa la yiraahdo iyo kuwa la yiraahdo mucaalij nafsiga oo ah dadka dhakhaatiirta ku takhasustay qofka psychology ahaan in loo daaweeyo jirooyin baa keeno marar badan waxaa dhacdo jirooyinka haddii laga daaweeyo inuu ka soo kabsado oo cunuga uu sidaas uu maaragtay ku fiicnaado aad iyo aad bay u dhacdaa marka in la kala ogaado oo qof walba mustawuhu yahay la ogaado aad iyo aad bay muhiim u tahay marka waxaan rabnaa talooyin inaan ku xijino biidn illahi tacaala la xiriiro maxay tahay waxyaabaha muhiimka ah ee laga rabo macalinka waalidka iyo murabbiga markuu dadka la dhaqmayo ama ardada uu la dhaqmayo xagga kala duwanaanshaha markii laga hadlayo waxyaabaha laga rabo ee muhiimka ah qodobka ugu horeeyo qodobada laga rabo waxa weeye inuu horta ogaado in ay dabiici tahay dadku inay furuuq fardiya ay jiraan qof aad iyo aad mustawihiisa u sareeyo qof ku xigo qof hadda taan soo sheegnay ilaa 5 level baan soo sheegnay inay noqdaan 5 farood inuu ilaahay simin horta midda inuu ogaado muhiim jiddan waa qofka murabbiga macalinka marka waxa dhacayso hadduu arintaa ogaado inuu xamili karayo ardada inay kala duwanaadaan oo mid walba asagoona naxsaneeno ana fakarayno oo cunuga mid wax baranaya ma ahna ana dhahaynin oo runtii in la iska ilaaliyo ay u baahan tahay dadka dhaho weliga wax ma baranay sidoo kale waxaan xasuustaa nin doctora wuxuu nooga sheekeeyay in iskuulku markuu dhiganayay arrimo noolaaleed oo ka jiray guriga xaalad maadi ah iyo faqri iyo hooyadiisa soo korisay oo yaanya iyo miis ku gadan jirtay ayuu saacidi jiray marka maadooyinku aad ugu dhacay dhowr imtixaan maamulihii iskuulka marka wuxuu yiri hooyada u yeeray wuxuu yiri bal iimo way u imaad waxay tiri wuxuu ku yiri cunugaada naga wado waxa weeye weligiina wax ma baranayo intaas uu raaciyay markaas waxay tiri wiil hooyaday cunugaada iga wada waa dhihi kartaa laakiin ma dhihi kartid cunugaada wax ma baranayo way soo wadatay wiil intaan soo soconay dalka Djibouti buu u dhashay doctorku la xifdiyo hadda waa nin doctora oo PhD gaaray wuxuu yiri intaan soo soconay hooyaday waxay u tiri wiil diyaaradda ma arkaysaa korkeena marayso diyaarad baa korkeena soo martay ninka wada darawalka inaan noqotid duuliyaha ma rabiyo waxaan rabaa inaan noqotid ninka lagu wado inaan noqotid madaxda ay aqoonyahanka aduu agi dambe markii dambe waan dadaalay buu yiri arday ayaan kaashin jiray buugaagtan ka soo qaadan jiray sidii baan iskuul ku dhameeyay yiri jaamacad buu bilaabay master buu dhameeyay ilaa PhD buu markii dambe uu gaaray marka qofka in lagu dhaho waxba ma baranaysid marnaba khalad waay marka qodobka koobaad talooyinka macallimiinta ku wajahan iyo murabbiinta iyo waalidku waxa weeye kala duwanaanshaha dadka horta inaad aamintid wax dabiici ah inuu yahay oo wax la yaab leh uunan ahayn waa koow qodobka labaad waxa weeye qof walba meel inuu ku fiican yahay inaad ogaatid ardayda aad isku wax ku qasbin halkan waxa jirto cilmiga tarbiyada marka lagu jiro oraah caan ah baa jirto oo ay yiraahdaan Einstein ninka la dhihi jiray baa laga soo guuriyay oo ahayd qofka waxa weeye hadda mesela tusaale ahaan kalluun iyo daanyeer kaba soo qaat haddaan dhahna geedkan fuula geedkan orod ku fuula haddaan dhahno waxa waaye daanyeerka orod buu ku fuulaa laakiin kalluunku ma fuuli karayo laakiin markii badda la galo yaa badinayo ama biyaha la galo yaa dhaki noqonayo ama smart yaa badinayo waxa badinayo kalluunka marka waxa weeye Soomaalida qaar waxay dhihi jireen qofka dhinac u badi marka qofka dhinac inuu ku fiican yahay inaad ogaatid oo aadan maaragtay qof walba dhinacuu ku fiican yahay aad ku qaadatid qodobkaas asagana waa qodob aad iyo aad muhiim u ah qodobka ku xigo waxa weeye cunuga haniyad jabinin macallin markaa tahay haniyad jabinin damiin baa tahay waxba ma fahmaysid wax la midka ku dhihin qodobka ku sii xigo afraad waxa weeye cunug kale ha u barbar dhigin hadaa waalid tahay hadaad macallin tahay hadaa murabbi tahay walaalka hebel laba bog buu xifdiyay maxaad haaf u xifdin baa laadahay carabkeenu wuu la qabsaday laakiin aan isku dayna inaan iska gooyno waa arrin aad iyo aad u khaldan laanahu qof walba wuxuu yahay oo ilaahay ku abuuray Soomaalidu waxay dhigi jireen waana abuur baa ka horeeyay ilaahay suu ku abuuraa ka horeeyay waanada dadka qofka wax buu ku duwan waxa uu kaga duwan yahay dadka kale hadaa dhahdid
maxaa hebel oo kale u noqon weyda way ku adkaanaysaa qof baa aamus badan haddaa ku dhahdo war sidii hebel oo kale maad u hadashidood u kaftantid wax yar hadduu isku daya xitaa kadib waxa u wakaa qof kaftan badan oo hadal badan baa jiro saasaa ilaahay u dhaliyey haddaad ku tiraahdid sidii hebel oo kale ma aamusid way ku adkaanaysaa marka marar badan waxaa dhacdo inuu wax yar aamuso ama maalin gelikeed uu isku dayo inuu yara aamuso haddana wax yar kadib uu is arko isagoo maxay halkiisi ka sii miisay oo maaragtay liannahu abuuristaa ka sii horreysay marka qodobka waa qodob muhiim waxaa weeye laa tuqaarin ha isku muqaaranayn cunug iyo cunug ha ku dhihin cunuga hebelba waa saase maasaa noqotay adiga hadda weyn oo dugsiga maamulayo haddaan intaan ku imaado ku idhaahdo war dugsigan maad sida dugsigaas abubakar ee nagu dhegan ninka hebel ahoo maamuloo kale maa noqotay ninka ugaaska cidda maamulaya haddaan ku dhaho war ugaas waa lagaa fiican yahay ugaaska beeshaasaa kaa fiicane ma kaasoo kale noqotid way ku adkaanaysaa arrintaa aad buuna u dhibsanayaa marka qofka bini'aadanka ah muqaaranada sideedaba wax fiican maahan in qof kale loo muqaaraneeyo waa wax khalad waay qof walba wuxuu ilaahay uu siiyey in lagula xisaabtamo oo lagala hadla ayaa wanaagsan qodobka sii xigo walaalayaal waxaa weeye caruur waxaa jirta waxa la yidhaahdo التأخر الدراسي التأخر الدراسي waxa weeye cunug baa maskaxdiisu way fiican tahay laakiin meeshii la rabay buu ka hoos marayaa dugsiyada quraanka waa taqaanaan waalidku way garanayaan cunug baa suu u fiicnaa ayuu hal mar hoos u dhacayaa hal mar hoos u dhacaas imaaday ta'akhur diraasi baa la yidhahdaa waa cunug meeshii la rabay uu gaari karay buu ka hoos maray ta'akhur diraasi marka carruurta ay ku dhacdo asbaabo fara badan baa keeno waxaa ka mid ah asbaabta keento in cunuga xaalado nololeed oo gurigooda ka jiro ay jiraan dhaqaale maaragtay keenayso waxaa keeni karta cunuga gurigooda sida ay nolosha ka tahay oo looga tacaamulo inuu dhib ka jiro oo dad ishaysto oo dagaal ka dhaxeeyo oo waalidkii iyo carruurtii iyo guriga markuu taga la dilayo oo lagu qaylinayo cunugan niyad xumo iyo niyad jab baaba haystaba waxyaabaha cunuga suu u socday ayuu hoos u dhacaa marmarka qaarkood waxyaabaha keena waxaa ka mid ah macalinkiisii haddii laga bedelo macalin kale loo bedelo dugsiyada caan bay arrintaa ugu tahay markii macalin la bedelo cunug ciyaal badan baa laga yaabaa inay wax iska bedelaan maxaa yeelay macalinka cusub iyo systemkiisa iyo nidaamkiisa inuu la qabsan waayaa laga yaabaa qofka bini'aadankana kama soo haro psychology ahaan iyo waxa la yidhaaho dareenkiisa marka macalinka hore way isku fiicnaayeen dariiqadiisa iyo suu u ixtiraamayo wuu soo jiidan jiray adduunka hadda carruurta waa la kala jiidanaya annagana iskuma dayayna inaan soo jiidano oon dugsiga u soo jiidno marka macalinka hore wuu soo jiidan jiray macalinka cusubna ma soo jiidanayo taa marka halkaa maxaa ka jiro cunugu inuu hoos u dhaco ayaa dhacayso marmar inay jirtaa laga yaabaa oo u baahan in la xalliyo marmar nin baa wuxuu nooga sheekeeyey cunug dugsigii diiday oo hal usbuuc iyo laba usbuuc lagu kari waayey ayaa markii dambe waalidku wuxuu yiri buu yiri ciyaal intaa soo wadatid oo xariga soo qaadataan kaalay qasab ku wada iskuulka dugsiga ku geeyay waa caan waay anaga cunug intii laga daba diro ciyaal orod badan in la soo qabto waa khalad waay cunug in macalinka uu la hadlo oo qanciyo oo erey fiican lagu dhahaa ka fiican in sidaa lagu sameeyo waabaan waxaan xusuustaa anoo arday ah ayaan ciyaal kale intay duufsadeen baan dugsiga u gagambin jirnay marka waxaan bilownay inaan dugsiga u gambino oon iska ciyaarno oon dabaal iska aadno oon meelo kale iska aadno marka macalinka waa meel igu arkay wuxuu ugu yiri erey aan ilaa hadda ma ilaawan sheekh macallin maxamed dheeraa la dhihi jiray ilaahay subxaana watacaala meel alla meel jiro ma garanayo hadduu maaragtay nool yahana ilaahay xafdiyo ha barakeeyo hadduu geeriyoodina allah u naxariisto meel buu igu arkay wuxuu yiri maxaa kugu dhacay ardaygayga aan jeclaa baad ahayd oo cod qurxanaa adigaan tartanada inaan kuu darsado rabay hebel iyo maxay kuu duufsamay hebel iyo hebel baa isku group tihiin ka soo har imow aad baan u calool xumaaday maalinkii baana igu dambeysay inaan gambiyo carruurtiina waan gooyey oo waan ka soo tegey maalinkii baana igu dambeysay inaan mar dambe aan raaco marka ereyga hadduu igu dhihi lahayn oo igaraaci lahaa oo la isoo xirxiri lahaa dagaal un baan halkii kasii qaadi lahaa qofka bini'aadanka marka walaalow buu wax ku leeyahay waa iyadii soomaalidu dhihi jireen qofka bini'aadanka walaalow kaale haddaad tiraahdo marka cunuga marka ciyaalka waalid haddaan waa naqaanaa macallimiin haddaan nahayna waa naqaanaa ciyaalka ta'akhur diraasiga ay ku dhacaan marnaba in la cadaadiyo ma aha waa in la soo dhaweeyo waa in marmar waxaa dhacdo in maamulaha loo geeyo la dhaho bal si fiican u sii garaac oo maaragtay si fiican u sii edbi si uu maaragtay casharka u sii barto arrintaasoo arrin saxan aan ahayn waxaa la rabaa in qalbigiisa la soo jiito asbaabaha keenaya in la ogaado ma macalinka xaggiisa
macalinka maxaa la yidhaahdaa waxaa weeye qisada igu soo dhacday oo ku saabsan waxay ahayd arday ayaan madrasa aan mushrif ka ahaan jiray ayaan tegey soo booqday markaasa waxaan u tegey ardadii kale ka haray waagii horena yuusuf baa la odhan jiray ardaygaas waagii horeetay arday la yaab lahaa maasha allah markaasa waxaan ku yidhi ninkan yuusufa axzaab buu maraya ninka raggii kalena ka haf bay marayaane see wax u dhaceen markaasa waxaa lihi yuusuf waa isbedelayoo haaf xitaa ma qaadan karo markaasaan ku yidhi war yuusufka ma yuusufkii yaraayo saas iyo saa ahaayo sidii sheekh maxamed ayuub qur-aanka u akrin jiray codka qurxanaa soo maa say dhaheen haa maaragtay indhahaadkaa geesiga maxaa dhacay bal ii keena waan wareystay waxaan ku idhi casharka meeqaa xifdin kartaa haaf baan qaataa buu yidhi cashar baan u akhriyey waxaan u malayn suuradday ahayd hadda ma xusuustay awal luqmaan ama awal sajda middeed bay ahayd cashar baan u akhriyey waxaan ku yidhi halkaan bog bal berri subax ii keen halkii bog berri subax ii keen macallinkan ha u tegeen waxaan ku idhi xafiiska igu imow xafiisku igu imaaday korkuu ka shubay waan u dhegaystay bog kalaan u akhriyey marka halkaa waxaa iga soo baxday cunuga maskaxiyan waxba kama khaldanee dib waxaan ku ogaanay macallinka iyo asagaa aad iyo aad maaragtay isku fahmi waaye arrintaasaa khatar xagga ay wax ka jireen marka ta'akhur diraasiga waxa la yidhaahdo oo mushkilad soo noqota ah waxaa loo baahan in lagu cilaajiyo xitaa waxaa runtii aad ii cajabiyey maamulo ka mid a maamulayaasha dugsiyada qur-aanka nairobi ayaa mar wuxuu iga sheekay ciyaalka markay ta'akhur diraasigaas oo kale uu ku dhacaan xitaa casharada waan ka joojinaa wey adigu imow xoogaa yar muraajace xafiiska maamulaha ugu yeerayo waa la dhiirigelinaya haye diyaari buu leeyahay xoogaa maaragtay anaa ku dhegaysanaya haye cajalkaan dhegayso ku celceli marka wuxuu yidhi markuu isbuuc camal ay qaadato oo aan rogrogo oo markaa kadib baa xalqadiisi lagu celinaya markuu caadi noqdo oo waddadiisii ku soo noqdo marka ikhwaani waxaa loo baahan yahay arrintaas maamulayaasha gaar ahaan inay u dhug yeeshaan waalidka laftiisa inuu u dhug yeesho oo cunuga waxa keenayo marmarka qaarkood dhiirigelin buu u baahan yahay maasha allah waa xifdin kartaa wuxuu u baahan yahay in la yidhaahday waa kan hadda waad xifdisay 5 daqiiqaad ku xifdisay adiga weyn ayaa waxyaabaha qaar waxaad aaminaysaa inaadan baran karin haddaa isku daydid waxaa laga yaabaa inaad baratid oo aad si cajiib ah ugu najaxdid marka arrimaha noocaas oo kale marka aad iyo aad waxaan u baahannahay in macallimiinta iyo maamulada dugsiyada qur-aanku ay aad iyo aad uga fikiraan waxaa muhiim ah qodobadaas haddaan dib u soo ururino in kala duwanaanshaha dadka inay wax dabiici yahay aan ogaano dadku inay heerar kala duwan ay yihiin aan ogaano qof walba wuxuu qaadi kara la saaro qof walba wuxuu fili karo laga sugo qof walbana meeluu ku fiican yahay lagu dhiirigeliyo la buunbuuniyo carruurtaada buunbuuni midka meeluu ku fiican yahay maasha allah hebel waa gurigu ka khidmadeeyaa waa baari oo waa kada marka dhinacii kale aad kor ooga soo qaado dhinaca inaad buunbuunisid dhinacuu ku fiican yahay dhinaca uu ku xun yahayna aad la cilaajiyo laakiin aanan la buunbuuninino aanan lagu niyad jabinin waa sidii aan dhahaynayo haddii kalluunka waxaa la yidhi lagu dhaho oraahdii Einstein ay ka sheegaan haddii kalluun lagu dhaho iyo daanyeer tartamo geedkan fuula oo waxa weeye geedka kalluunku ma fuuli doono daanyeerku laakiin markii uu fuulaya haddaan dhahna damiin baa tahay saasay ku dhimanaysaa kalluunka weligeed inay doqon tahay waxba ay awoodin bay aaminaysaa laakiin haddii la dhaho ayadana dabaasha laguma gaaro oo biyaha haddii la gala koob bay galaysaa haddii la dhaho wax kale ayaa meeshii ka soo baxayo marka qofka in lagu dhiirigeliyo dhinaca uu ku fiican yahay dhinaca uu ku xun yahayna kor looga soo qaado ardayda gaar ahaan macallimiinta qur-aanka iyo inay arday walba wuxuu qaadi kara ay saaraan gruubka ay u kala qaybinayaan ardayda lafteeda inay aad iyo aad isaga hubiyaan gruubyo isqaadi karo oo istaxamuli karo inay noqdaan ugu dambayna qodobkii aan tilmaanay oo ahaa cunuga suu u lalinayo gaabiyo in daryeel gooni ah la siiyo ilaah subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa kuwii hadalka dhegeysto khayrkiisana kuwa intifaaca inuu naga dhigo aad iyo aad baa dhegeysigiina ugu mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmat ullah